السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي qiimaha badan maanta iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa casharkeena lixii soddonaad ee Microsoft Word waxaan kusoo guda jirnay barashada Microsoft Word casharkii ka horeeyay waxaan kusoo qaadanay copy and paste ayaan kusoo qaadanay ama sida wax loo koobiyeeyo loo raro iyo sidoo kale sida loo dhigo ama loo dejiyo ayaan kusoo qaadanay casharkeena maanta hadduu eebweyne raalli ka noqdo waxaan ku qaadanaynaa wax loo yaqaano printer waa sida wax loo daawaco insha allah waana cashirkii ugu dambeeyey guud ahaan ee koorskeena ee Microsoft Word-ka ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa ama waxaan soo furaynaa Microsoft Word-kii aan ku baraatikeynay ayaan soo furaynaa oo gudaha ayaan usoo galaynaa okay waa kan Word-ka markii gudaha aanu soo galno wejigan hore ayuu leeyahay okay waxaan u baahannahay marka documentigan inaan daawacno ayaan u baahannahay inaan daawacno ileen documentiga badanaa waa markii qofka uu ka dhamaado waa software documentigan hadda waxaa loo yaqaanaa softy computerka ayuu ku jiraa waa sidee hard loogu bedelaa oo micnaheedu tahay sidee loo daawacaa haddii aad heli karto mashiinka printerka ama daabicidda ama haddii goob daawacad aad ka shaqaysidba intaba cashirkan si fiican ayuu ku anfici doonaa insha allah okay ugu horeyn waa shortcut waan isticmaali karnaa ama sidoo kale sida kale caadigan waan isticmaali karnaa okay sida wax loo daawacaa waxaan tagaynaa ugu horeyn halkan file ayaan tagaynaa file markii click aan ku siino print fadhigan ayaan imaanaynaa halkan print ayaan ku dhufanaynaa okay print markii aan ku dhufano waxaa inoo soo baxaya wejigan ayaa inoo soo baxaya fiiri halkan waa qaybta la xiriirta daawacada halkanna waa meesha aad kala socon lahayd dhaqdhaqaaqa warqadaada hadda fiiri meeshan waxay laba u kala tahay cabirka warqadeena ayaa yar tusaale waa 46 boqolkiiba haddii boqolkiiba boqol aan ka dhigno zoom aan soo gelino waa hal page ayay ku ekaane hal page ayay ku ekaane okay aan yarayno marka si dhaqdhaqaaqa aan u aragno warqada dhaqdhaqaaqeeda saan u aragno okay kontonkaaba aan ka dhigno okay pagekan ayaa kaasoo horbaxaya okay aan ku horeyno qaybtan meeshan ay ku qorantay copies meeshan ay ku qorantahay halkan ay ku qorantay copies waxaad gelin doontaa nambarka aad rabto in lagu koobiyo tusaale hadda documentigan wuxuu ka kooban yahay 18 page uu ka kooban yahay qaybtan hoose fiiri 18 page uu ka kooban yahay 18kan page meeqa qofoodaa rabtaa inaad u daawacdo ama meeqa xabaa rabtaa inaad ka daawacdo oo kale waa okay tusaale waa halkan haddii aan dhaho 15 haddii aan dhaho waxaa la soo saari doonaa 18kan xabadood waa 15 qofood ayaa looga daabici doonaa halkaas waxaa ku xisaabtami marka nambarka koobiga ayaad ku xisaabtamay tusaale qofka hadduu ku dhaho laba xaba iga daawac saddex xaba iga daawac hadba xaggaas ayaa u geli doontaa okay badhankan xiga meeshan waa meesha laga doorto printerka ani hadda waa iima xiriirsana printer iima xiriirsana laakiin marki printerka iyo computerku markay is haystaan halkan waxaa soo geli doona magaca printerka markaas adi aa isticmaalaysid ayaa soo geli doona hada kuwan waa sample waye Microsoft Print PDF iyo waa OneNote desktopkan iyo waa sample printer waye waa office-ka iska wato kuwan office-ka ayaa iska wato okay halkana waxaad qabadsiin doontaa ama wuxuu kusoo qaban doonaa printerka markaas kuu xiriirsan oo computerka kuugu xiriirsan ayaa soo qaban doona halkan qaybtan hoosena ready waa inuu ka ahaataa tigtaasna waa inaa saarnaataa markaas wax cilad ah ma jirto okay qaybtan setting aan imaano meeshan ay ku qoran tahay print all pages okay haddii aan u baahanahay inaan daawaco dhammaan 18kan page haddii aan rabo inaan daawaco meeshan waa inay ii noqotaa ama waa inay sidan ii ahaataa print all pages waa inay ii ahaataa ka waran haddii aanan rabin dhammaan pageska inaan daawaco keliya aan u baahanahay current page macnaha pageka markaan aan taaganahay oo keliya pagekan koowaad oo kale haddii aan rabo inaan daawaco ka waran halkan aan furayaa waxaan leeyahay print current page pageka markaas falaartu ay ii taalo pagekaas oo keliya la daabici doonaa pageka falaartu ay ii taalo pagekaas oo keliya ayaa la daabici doonaa okay waa isla fahanay
qaybtan hoose pageska ay ku qoran tahayna ka waran halkan. Halkan iyadu waxaad ka xulan doontaa ama waxaad ka xulan kartaa waxa la yiraahdo number of pageska. Tusaale meeshan waxaa ku jirta 18 page ayaa ku jirta. Anna waxaan rabaa pageka koowaad ilaa iyo pageka tobanaad oo isku xiran ayaan rabaa. Halkana waxaan leeyahay 1 ilaa iyo 10. Fiiri marka waxaa la daabici doonaa pageka koowaad ilaa iyo pageka tobanaad ayaa la daabici doonaa. Waxaana loo yaqaana custom print ayaa loo yaqaana. Macnaha waa waxaad adigu samaysatay ama adigu aad dalbatay. Okay, sidoo kale waa maaragtaa waxaa kaloo meeshan laga dhigi karaa page dhaaf. Macnaha page aad rabtid inaad xulato. Hadda way isku xiran yihiin 1 ilaa iyo 10. Waxaa lagaa reebi doonaa 11 ilaa iyo 18 waa lagaa reebi doonaa. Laakiin 1 ilaa iyo 10 waa lagu daabici doonaa. Macnaheedu waa saas. Kabaran laakiin haddii aan rabo pageka tobanaad aan leeyahay koma ama hakad ayaan gelinaya. Pageka toddobaad hakad ayaan gelinaya. 12aad hakad 18aad. afarta page bisa la ii daabici doonaa oo ah pageka tobanaad, pageka toddobaad, pageka 12aad iyo pageka 18aad. Intaas oo keliya ayaa la ii daabici doonaa. Waa markii nidaamkan aan u xusho. Isagana waa nooc ka mid ah custom printing. Macnaheedu waxay tahay koowaad ilaa iyo sagaalaad hawada lagu xiri doonaa oo printerka ma soo qaban doono. Printerka wuxuu soo qaban doonaa pageka tobanaad ayuu ka bilaabi doonaa, toddobaad ayuu aadi doonaa, pageka 12aad, pageka 18aad. Nidaamkan ayuu kugu daabici doonaa. Macnaheedu ay tahay inta page adi aad xulatay ayuu kuu daabici doonaa. Intaan oo isla fahanaa umaleynaa. Tusaale inaad dhahdo pageka koowaad ilaa iyo 20 ii daabac. Tusaale document ka kooban 100 page oo kale aad rabtaa inaad daabacato. Waxaa u baahan tahay tusaale waxa aad loo isticmaalaa markii la soo xulayo ama markii jabtare iyo waxyaabahaas la daabacanayo. Waxaa fiirsanaya markaas jabtarka pageka ku bilowdo iyo sidoo kale pageka ku dhamaado. Tusaale waxaan u baahanahay jabtarka tobanaad inaan daabaco maada heblaayo ama maada A inaan daabacaan rabaa ama maada X inaan daabacaan rabaa. Jabtarkaas wuxuu ka bilowdaa 121 ayuu ka bilowdaa pagkiisa koowaad wuxuuna ku dhamaadaa 172 ku dhamaadaa. Hadhow marka waxay gelin doonaa 121 ilaa 172. Inta u dhaxayso jabtarka ahna waa la ii daabici doonaa. Haddii page cayiman aan u baahanahay waxaan samayn doonaa nidaamkan oo kale pageka magacyadooda ama nambaradooda ayaan sheegaya. Tusaale inaan dhaho pageka tobanaad, toddobaad, 12aad, 18aad nidaamkaas oo kale inaan dhaho. Waxaan u maleynayaa qaybtaas inaan ka gudbi karo. Okay, waxaan imaanayaa qaybtan ay ku qoran tahay print one side. Meeshan horta kow printerkan way ku xiran tahay. Sidoo kale fahan way u baahan tahay. Printerada waxaa jiro printero yar yar oo waxaa jirto maaragtaa kaliya daabici kara page cadaan. Ma la fahmaysaa? Macnaha warqadu A4 ama A3 wixii doontaba ha noqotee marna waxaa la samayn karaa in la page garaaco. Macnaheedu ay tahay warqada labadeeda dhinacba inay wax ku qornaadaan. Marna in maaragtaa warqadu hal dhinac ka mid ah oo keliya waxay ku qoran yihiin page cadaan iyo page garaaca loo yaqaanaa. Haddii aad u baahan tahay marka page cadaan print one side aad dooranay. Print one side oo macnaheedu tahay in hal dhinac wax lagu qoro dhinac kalena laga boodo. Af Soomaaliga anigu waxaan dhahnaa page cadaan ayaan dhahnaa. Okay, haddii aan rabno ka waran page garaac ama isku garaacid labada dhinacba in wax lagu qoro haddii aan rabno ka waran. Halka ayaan fureynaa waxaan dooranaynaa manual print on both sides. Waxaan fureynaa halkan ay ku qoran tahay manual print on both sides. Macnaheedu ay tahay in warqadan labada dhinacba ama waa maaragtay in wax lagu qoro ama wax la daawaco. Mujeda reload aa lagu samayn doonaa warqada paperka. Okay, marka kan waxaa loo yaqaanaa page garaac ayaa af Soomaaliga loo yaqaanaa page garaac in labada dhinac la isku garaaco ama wax lagu qoro. Okay, hadda fiiri meeshan waxaa noo qoran 18 page noo qoran. 18 page waa la isku garaaca haddii la dhaho ayadana waxay ku soo koobmay waa maaragtay 9 page. Macnaha 9 warqadood ay ku soo koobmay marka la isku garaaco. Okay, halkaas waa isla fahanay. Meeshan ay ku qoran tahay collate ka waran halkan. Okay, collate-kan iyo uncollate-kan labada meelba printerka aan iraade documentiga aad daabacayso haddii PDF uu yahay ayuu ku anfaca. Laakiin haddii Word uu yahay waa maaragtay iska caadi way normal way. Collate ha kuu doornaato ama uncollate ha kuu doornaato waa normal.
weliba markuu documentiga markuu yahay word markuu yahay automatic wuxuu kusoo qabanayaa collate ayuu kusoo qabanaya. Uncollate goormuu imaanaa marka? Uncollate wuxuu imaanaa documentiga marka uu PDF yahay. Sidoo kale PDF-na maarata documentiyada ama pagekana ay badan yihiin sida hadda oo kale 18 page 10 page 2 page wixii ka badan oo kale. Waa maarata 5 6 meelahaas oo kale haddii aad haysato ayuu ku anfacay. Aan isla fahanno marka collate muxuu yahay uncollate muxuu yahay. Okay. Haddii aan u baahanahay tusaale 18 page print all tusaale halkan waxay noo tahay print all ay noo tahay oo dhammaan pageka inaan daawacnaa rabnaa 18kaas page halkanna waa maarata page cadaan ama page garaa waxay doonto hanoo noqoto halkan ay noo soo hartay. Halkan waxay tahay in laisku xijiyo pageka la daawacayo tusaale pageka koowaad labaad saddexaad printerka micnaha inuu soo qabto qaab taxane ah markuu daawacayo inuu ka bilaabo pageka koowaad inuu ka bilaabo labaad uu ku xijiyo saddexaad uu ku xijiyo afraad uu ku xijiyo ilaa iyo 18 ilaa uu ka gaaro nidaamkaas oo kale inuu daawaco. Okay. Meeshan marka 15 xabaa gelinay 15ka xababa nidaamkaas loo soo saari doonaa macnaha 1 ilaa 18 la daawici doonaa haddana waa lasoo bilaabi doonaa 1 ilaa 18 mar kale haddana waa lasoo bilaabi doonaa 1 ilaa 18 nidaamkaasaa lagu wadi doonaa markuu collate u yahay sida hadda tusaalaha hoos kaaga muuqdo kale 1 2 3 1 2 3 mujda haddii laakiin uncollate u yahay ka waran. Okay, uncollate aan ka dhigno. Uncollate haddii uu yahay waxaa dhacaysa marka 15 xaba ka koobiyeynayna soo ma haa wuxuu sameynaa pageka koowaad oo wuxuu ka daawacaa 15 warqadood uu ka daawaca wuxuu fiirinaa hadba halkan wixii laga codsado fiirina. Pageka koowaad wuxuu ka daawacaa 15 pageka labaad oo imaana haddana 15 uu ka daawacaa pageka saddexaad uu taga haddana 15 kale uu kasii daawacaa nidaamkaasuu ku wadaa macnaha ilaa iyo pageka 18aad. Hadhow marka aad dhejinaysid warqadaha ileen mise lehee pageka koowaad oo kale 15 xaba isdul saaran pageka labaad 15 isdul saaran pageka saddexaad 15 isdul saaran iskuma xigaan. Waxaa ku qasbanaanaya marka pageka koowaad inaad soo qaadato aad raadiso pageka labaad aad raadiso pageka saddexaad inaad isku keento ilaa 18 xaba inaad isku keento kadibna aad dhejiso. Meeshan marka waxay dhibaato ka imaanay documentiga dhejintiisa ay dhibaato ka imaanay qofka time badan ay ku qaadanay meeshan uncollate haddii ay u tahay. Laakiin haddii collated ay ku tahay koowaad ilaa 18aad hal mar aad isku raadinay tusaale pageka koowaad aad fiirsanay ilaa pageka ugu dambeeya fiirsanay intaas waa isla qabanay waa dhejinay. Sidoo kale haddana pageka koowaad ilaa pageka 18aad waa isla fiirinay meeshuu ka bilaawdo meeshuu ku dhamaado hal mar aad soo qabanay waa isla dhejinay. Laakiin hadduu nidaamkan uu ku yahay pageka koowaad hal xabo ka soo qaad pageka labaad hal xabo ka soo qaad pageka saddexaad hal xabo ka soo qaad ilaa pageka 18aad aad ka tagto min hal markaa ka soo qaado isku xijiso isku aadiso kadib aad dhejinay. Meeshaas marka time badan ayaa kaaga dhumay marka loo eego dhanka time-ka marka meeshaas marka aad daawacayso documenti aad isaga fiiri ama haddii printer aad ka shaqaysidba aad uu ku anfacayaa meeshaas. Okay. Meeshan ay ku qoran tahay marka page per sheet. Page per sheet hadda waa maarata wax uguma baahna. Page per sheet waa maarata waxa aad u anfacayo maarata marka aad daawacayso documentiga PowerPoint. Halkan PowerPoint ayaa maarata ku anfacaya tusaale waxaa waaye halki slide oo PowerPoint-ga oo kale in waa maarata ama halki A4 oo kale in laba loo qaybiyo ama laba laga kala dhigo halka A4 oo kale in maarata 4 maarata loo qaybiyo slide 4 slide in micnaha lagu muujiyo. Meeshan marka waxaan ku fahmi doonaa printerka ama marka aan maarata daawacayno ama daawacad aan ku sameynayno PowerPoint-ga. Word-ka oo kale waa sidiis isaga wuxuu ku yahay normal ayuu ku yahay wax dhibaato ah maarata word-ka ama wax zaa'id ah word-ka kuma soo kordhinayso wax dhibaatana uma lahan meeshan. Laakiin marka aad daawacayso documenti PowerPoint ama slide marka aad daawacayso markaas ayuu ku anfacaya. Okay. Kolley waa maarata waxaan u maleynayaa printer waa maarata in badan oo nagu filan inaan ka fahanay. Okay, haddii aan u baahanana shortcut aan isticmaali karno oo ah control iyo P ayaan leenahay waa kan isla wejigii ayaa noo soo baxaya xogtiina isla xogtii waaye sidii ayaan u buuxinaynaa. Marka waxaad isticmaali kartaa shortcut oo control P ah. Kolley meeshan ku celis igama baahna. Meeshan waxaa gelinay number of copies ama inta xabo aad rabto tusaale haddii aan rabo laba xabo inaan ka daawaco meeshaas labaan leeyahay haddaan rabo 10 inaan ka daawaco 10 aan leeyahay haddaba nambarka aad u baahan tahay ayaa halkaa gelinay. Meeshanna automatic computerka printerka markaas ku xiriirsan ayuu soo qaban doonaa halkanna waa maarata custom print waaye
hadda meeshan nambari waxyaabaha noogu jiro haddii aan rabno dhammaan pageka inaan daawacana waxaan leenahay print all pages aan leeyahay waxaa la ii daabici doonaa dhammaan pageka ayaa la ii daabici doonaa halkan waa haddii aan rabo page garaac iyo haddii aan rabo page caddaan ayaan ka dhigi doonaa meeshana kolleydi aan kolleyta waaye in warqadaha qaab isu xigo taxanaha in loo daabaco ama maya in loo daabaco waa maaragtay qaab kale oo ah maaragta 15 xabo tusaale pageka koowaad in laga wada dhammaado 15 xabo laga daabaco haddana pageka labaad la tago laga wada dhammaado pageka saddexaad la tago laga wada dhammaado pageka afaraad la tago laga wada dhammaado nidaamkaas oo kale waaye halkanna waxaan dhahnay page warsheet waaye powerpointiga ayaa maaragta meeshaas caan ku ah oo wordka wax isbedela kuma lahan kolley waxaan filayaa printer in nagu habboon ama in nagu filan inaan ka fahnay ayaan rajeynaya okay waxaan marka guud ahaan halkaa kusoo gebagabeyneynaa koorskeena Microsoft Word oo aan kasoo diyaarinay in gaaraysa ilaa iyo 36 cashir waxaan filayaa kolley 36 cashir waa intii ugu muhiimsanayd oo aan kusoo qaadanay inta kale waa maaragta harsanna waxyaabo kale oo iska yaryar ay noqonayaan wixii kaloo markaas dee dheeraad ama shaqsi ahaan adi aad u baahatana si gooni ayaad ila soo xiriiri kartaa wixii aan kaa saacidi karo waan kaa saacidaya insha allah hadduu iigu weynaan raalli ka noqdo cashirkeena 36 halkaa ayuu naga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar like nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka